siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa adeyn culus u jeediyay dowladda qatar oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay siyaasiga in dowladda qatar ay ka dambayso qaraxyada ka dhaca Soomaaliya isla markaana ay la soo baxday habdhaqankii hore ee Itoobiya. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa su'aal ka keenay sababta dowladda qatar looga aamusan yahay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliya halka shalay siyaasiyiinta Soomaalida ee Itoobiya xiriirka la leh lagu tilmaami jiray daba dhilifyo. dowladda qatar waxa ay la soo baxday habdhaqankii hore ee Itoobiya, safiirkeeduna sidii Generaal Gabro oo kale ayaa saf dheer loogu jira. shakhsiyaad tacbaanayaal ahna way nagu dhex tallaasheen haddii aan shalay dhibsanaynay sanduleeskiis saraakiisha Itoobiya. siyaasiyiintii saaxiibka la ahayna ay daba dhilif Itoobiyaan ah ku suntanayeen maxaa qatar uga aamusanahay. qatar waxaa looga aamusan yahay xogaaga sandeerarka ah ee ay markaasi xaggeeda ka yimaada ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu kala jeedo in ay markaasi dowladda Soomaaliya dhaqaale siido. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dowladda qatar u baaqay in ay joojiso faragelinta qaawan ee ay arrimaha Soomaaliya ku hayso kana wado markaasi habdhaqan taban ee ay markaasi horay dowlado kale ugu hongoobeen. dowladda qatar ayaa kaalin ku lahayd doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo baxay sanadkii 2017 taasi oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa haatan ka dhaceeyay xiriir wanaagsan, waxaana dowladda Soomaaliya garab istaagtay dowladda qatar xilligii dalalka khaliijka ay xiriirka u jareen. shalay wafdi ka socda dowladda qatar ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, iyadoo wafdiga ay isugu jireen saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaandhigga dalka qatar. ujeedka wafdigaas ay u gaareen shalay magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu sheegay kormeerka goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ahlus Sunna ee ciidamada qaranka lagu beeriyay. dowladda qatar ayaa dhaqaale ku bixin doonta tababarka la siinayo ciidamada Ahlus Sunna oo dhawaan lagu beeriyay ciidamada xoogga dalka iyadoo la xareyn doono kadib markii si rasmi ah loo diiwaan geliyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Bartamaha Media subscribe saar kadibna riix calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay aad uga mid noqotid qofka ugu horeeya ee daawado muuqaaladeena.